wafdigan uu hogaaminayo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Yuusuf Axmed Cali oo maalmahanba booqasho shaqo ku joogay magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceergaabo ayaa maanta waxa uu kormeer kala duwan ku sameeyay goobaha caafimaadka ee magaalada Ceergaabo jaamacadda Sanaag University oo qayb ka noqonaysa shaqaale caafimaad oo lagu tababari doono jaamacaddaasi iyo xarunta gobolka Sanaag oo uu agaasimaha iyo wafdigiisani kulan kula yeesheen barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falaay intii wafdigan uu hogaaminayo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland kormeerkoodan ku jireen waxa uu agaasimuhu qayb ka qaatay daaweynta bukaanka ku jiray MCH-yada uu kormeerka ku marayay oo ka koobnaa MCH Barwaaqo iyo MCH-ka bisha cas ee magaalada Ceergaabo isagoo sidoo kalena agaasimuhu shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sanaag baanka Ceergaabo uga sii daayay mushaharaadkoodii ay ku shaqeynayeen oo uu ugu talagalay inay bisha Ramadaan ku ciidaan kormeerkan kadib waxa halkaasi agaasimaha iyo wafdigan uu hogaaminayo uga mahad celiyay barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falaay iyo gudoomiyaha jaamacadda Sanaag Cali Cabdi Hurre oo isaguna qayb ka noqon doona barnaamij cusub oo caafimaad oo laga fulinayo jaamacadda Sanaag war halkan ku soo dhaweynaya agaasimaha guud ee caafimaadka Dr. Yuusuf Axmed Cali Ardo iyo wafdiga uu hogaaminayo oo maanta noogu yimi gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada madaxda Ceergaabo waxaan leenahay soo dhawaada adiga iyo waftidaadiba barnaamijkan cusub ee imka wadaan ee hore uu noogu yimi aad baan idin soo dhaweynayna annaga iyo bulshadaan wakiilka ka nahayba insha Allah khayrna way idin rajaynaynaa wax qabadkani waxa weeye waa mid ballaaran waa mid aan soo dhaweynayno muxuu ahaa gobolkuna u baahnaa muddo badan wasaaradda caafimaadkuna shaqadan ay wadaa waxa weeye waa shaqad aad iyo aad ومهمة وأي عافماتك أي لفتي سودة مهمة تنا وحوي وان سود ويننا أنا كنا حلكا وان قادني وان قدوني روحانتي وح بدنا جامعة دوي كتريسا خرومر كذا وي كتريسا إن شاء الله أنا وحن فيلنا إن محوها أن كوجول السنة agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Yuusuf Axmed Cali ayaa gabagabadii kormeerkiisan ka hadlay raxiim ujeedadaanu maanta u nimeen jaamacadda Sanaag waxay ahayd inaanu doonayno insha Allah taala in la sameeyo iskuulkii tababarka caafimaadka ee gobolka Sanaag uu lahaa iskuulkaas inta uu dhismihiisii iyo kharashkiisii waa inoo diyaar إن شاء الله تعالى waxaan doonaynaa inta dhismuhu socdo inay sii bilaabanto waxbarashadii oo markaa ay ku bilaabanto jaamacadda Sanaag ay sii wado intaas jaamacadda Sanaag waan soo aragnay maanta galaasyadeeda iyo library-ga iyo aad iyo aad bay u wanaagsan yihiin wayna qaadi kartaa tababarka dadkaas ardayda culuumta caafimaadka baranaysa waxa kale oo aan ka caawin doonaa barnaamijkani ka caawin doona jaamacadda in macallimiinta tababar la soo siiyo hadii beedmaayo ay xogaa yar oo running course-na ka helaan oo kharash yar oo waxyaabo hoosaadka yar yar maaragtay ka kafeyn kara iyo macallimiinta qaarkood mushaharkaba hadii beedma insha Allah taala marka Cabdiraxmaan Axmed Ilsar telefishinka caalamiga Star TV magaalada Ceergaabo